دكتور محمد عبدي قبوس oo kamid ahaa dhaqaatiirta ugu caansan cariga Soomaalida ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u shaaciyay in uu uga fadhiistay shaqadii dhakhtarnimo iyo sidoo kaleba in uu ka fadhiistay arrimihii siyaasadda. Dr. Maxamed Cabdi Gaboos oo warbaahinta kula hadlay maanta magaalada Hargeysa ugu horeyn waxa uu faahfaahinayaa sababaha ku kalifay in uu ka tago shaqada dhakhtarnimo. sida aynu ka warqabno xanuunka coronavirus wuxuu haleelay qaar ka mid ah dhaqaatiirteena waxay isugu jiraan kuwa geeriyooday qaar la ildaran nafqabadkiisa oo ilaa hadda helitaanka oxygen-ka la halgamaya iyo kuwa sidayda oo kale allaha weyn u fududeeyay oo si safmar ah uu ku dhaafay raggaasi waxa ay kaalin mugle ka soo qaateen halgankii iyo dib u dhiskii dalkeena waxaana hubaal ah inay banneeyeen kaalin la tabi doono allah u naxariisto inta geeriyootay inta weli xanuunsanna allah ka dulqaado xilligii ay iigu adkayd xaaladdu ayaa ahaa markii aanu isugu dhoweyn anigee naftaydu faq dheer iyo xogo badan oo aanu isweydaarsanay kadib waxaan ku qancay in wixii hadda ka dambeeya aan u soo jeesto howlaha samafalka barashada diinta islaamka iyo ka warqabka carruurteeda sidaa awgeedna waxaan go'aansaday inaan ka fadhiisto kow shaqadii dhakhtarnimada tan iyo horaantii sanadkii 1979 anigoo dardartii iyo xiisihii aqoonta qaba ayaan bilaabay inaan ummadayda ugu adeego mihnada caafimaadka waa geedi qaatay nus qarni gudashada waajibaadkaas waxaan u arkay in yar oo ka mid ah abaalcelinta dadka iyo dalku iga mudan yihiin waxaan se aaminsanahay in hadda la joogo xilligii ugu habboonaa oo aan ka fadhiisan lahaa shaqada maadaama uu hirgalay isbitaalka haldoor oo qalabay casri ah iyo xeeldheerayaal caafimaadi ka howlgalaan anigana aanu igu tiirsanayn wixii hadda ka dambeeya maxamed cabdi gaboose waxa uu sidoo kale sheegay sababaha ku kalifay in uu ka tago oo uu ka fadhiisto shaqada dhinaca siyaasadda marka dib loo jaleeco taariikh nololeedkayga siyaasadeed oo xambaarsan waayo aragnimo qoto dheer waxaan go'aansaday inaan iyadana ka fadhiisto sababaha soo socda kow tamarta jirka iyo maskaxeed ee qofku waxay la jaanqaadaa da'diisa haddii aad dareensan tahay in dowladaha hana qaaday ay dhacdo in hogaamiye da'diisu weyn tahay uu xilka qabto waxaad ogaataa inay yihiin dowlado leh nidaam iyo hay-ado cagahooda ku taagan oo u dhisan inay bari taaraan hogaamiyaha laakiin annaga dowladnimadeennu waa curdan sidaa awgeedna waa inuu hogaamiyuhu noqdaa shakhsi firfircoon oo xoog leh maadaama uu isagu yahay mishinka ay ku xiran tahay socodsiinta howlaha oo dhan sida awgeed wuxuu hankaygu ii sheegayaa maadaama ay da'daydu 70-yadii cagcagaynayso in aan ka gaabin karo buuxinta baahida xaddhaafka ah ee dal curdana sababta labaad ee siyaasadda uga fariisanayna waxa weeye nidaamka doorashooyinka ee dalkeen sanadkii 1998 oo aan ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumaddii maxamed xaaji ibraahim cigaale la naxariistay goor aroor hore ah oo dadku aanay weli aad guryaha uga soo bixin sida aan filayana maalin jimco ahayd waxaa aqalka iigu yimid taliyihii biliiska ee xilligaa allah u naxariistee cilmi kaba oo ii sheegay arrin muhiim ah
inay jirto isaga oon wax badan ii faahfaahinna ayaanu igu hagay dooxa duleedka magaalada Hargeysa ee Malka Durdur waxaan dul istaagay muuqaal aad u xanuun iyo murugo badan fal ka baxsan islaamnimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo burinaya xeer kaste oo wax isku ahaansha dhigay waa qalfoofka rag badan oo isugu xiran toban oo xabaal wadareed loo jeexay waxaana soo saaray roobo mihigaana oo ka daayay Hargeysa xilligaas waxaan jawaab u waayay su'aalaha ka dhalanayay liidashada dambiga sababta looga dhigay gumaadkaas waxaan si nafteyda ku qanciyay rajo ah in la dhisayo qaran dhaama kii dume aniga oo soo dheeganaya waayo aragnimada aan ka helay halgankii tartanka ururada siyaasadda oo aan dhaqangelintoodii hore xabsi iyo halgan adag u soo huray waxaan ku qancay inuu yahay dariiq iyo nidaam doorasho oo tolaya shaarka ligitalisnimo laguna xalaashanayo kursi booli ah oo ugu dambeyntii ku fariisanayo nin hore u sii dooranaa sababtaas ayaan 2012kii markii natiijadii ururada lagu dhawaaqay aniga oo go'aanaya sida wax u dhaceen waxaan xaqiiqsaday in la helo doorasho xor oo xalaali ay ku biirtay intii sida arxan darrada ah loogu dogay Malka Durdur waxaan goobjoog ka noqday hay'adihiis dheelitiri lahaa ee qaranka oo dhammaantood dubbe ay gacanta ku hayso hadba cidda talada haysa waxaan xaqiiqsaday in nidaamkani aanu wax badan ka gadisanayn kii ridistiisa aan ayada u soo galay oo inaad doorasho raadsataa ay marar abuuri karto in nafa ay go'aan taasoo aanan anigu diyaar u ahayn maalintaas dhawaaqaas kadib ilaa maantay oo 9 sano laga joogo mar kaliya kama qayb gelin hawlo siyaasadeed xisbi iyo ururtoona wixii hadda ka dambeeyana kuma tali joogo sababta saddexaad oo siyaasadda uga fariistay nidaamka dimuqraadiyadda ee aan dooranay dad inaga taariikh ilbaxnimo iyo dhaqan duwanaa ayaa nidaamkan dimuqraadiga ah u curiyay inuu xal ugu noqdo maareynta iyo xasiloonida noloshooda waxa aanay u samaysteen tiirar dheeliga ka ilaaliya iyo hay'ad damaanad qaadaya habsami u socodkeeda innaka ummadeennu waa reeguuraa danyara qabiilku lafdhabar u yahay jiritaankooda dadka inta ugu liidatana gabood ka dhigtaan waxaan nahay dad muslina oo guud ahaan aaminsan xukunka samaawiga ah gumaystaha hortiis dadkaygu ma lahayn taariikh maamul iyo nidaam ay wadaagaan oo fac weyn kaasoo damaanad qaadaya cadaaladda iyo waxwada lahaanshaha iyo danta guud haddaba si nidaam tala wadaag ah oo uga hirgalo geygeenna waa inuu noqdo mid qadarinaya qaab dhismeedka bulsho iyo dhaqan dhaqaale dadkeenna waxaanu hubaalaa inay dimuqraadiyaddu mari doonto jidkii uu maray hanti wadaagii kacaanka ee hore usoo fashilmay sida awgeed anigu kuma qanacsani durbaanada beenta ah iyo alalaaska ololayaasha aan dhaafsanayn sacabka iyo xiisaha maalintaas siyaasaddiina maantay ayaa iigu dambaysa inaan howlgalkeeda iyo ururadeeda iyo xisbiyadeeda iyo tartankeeda iyo waxooda dhan waa jooji shakhsiyaddeeda gaarkaa baan u jeesanayaa hantidayda si aan uga xoroobo mashquulka maadiga ah waqti fiicanna aan ugu helo cibaadadeyda waxaan go'aansaday in wixii hadda ka dambeeya
in wixii hadda ka dambeeya wixii aan dhaqay iyo maamulkeeda aan ku wareejiyo ubadkayga. abaalka UK alle ayaa keligii mahad oo dhan iska leh. waxaanse aanan ilaawi karin inaan xuso shacbiga Ingiriiska iyo xukuumaddooda oo waqtigii noloshayda iigu adkaa aniga iyo ubadkayga noo fidiyey gargaar gobonnimo iyo bini'aadnimo. maanta oo aan da'dii howlgabka gaarina ay sii wadista geediga noloshayda igala wareegayaan ubadkaygii ay iyaku waa UK fursad u siiyeen inay noqdaan aqoon-yahano buuxin kara kaalinta igu bannaanaatay. qabyo qoraal buug si aanay u lumin waayo aragnimada aan ka bartay sooyaalka midabada badnaa. waxaan ugu bishaaraynayaa dadweynaheenna inuu gebagabo marayo qabyo qoraal buug aan ku aruuriyo xogtaas, kaasoo aan eegayn keliya aminta iyo taariikhda dhacdooyinka aan tiro lagu soo koobi karin ee aan goobjoog u ahaa, balse xambaarsan casharo iyo gorfayntooda. waxaan ku faraxsanahay inaan nasiib u helay qoraa iyo saxafi hibadiisa ka sokow noqday shakhsi sida dareenkaygu yahay iga gacan siin kara inaan sida ugu quman ugu turjumo dhacdooyinkaas. gabagabadii, dunida maanta aafooyin badan baa ku gedaaman, qaar aadame sameeyey iyo kuwo dabiici ahaba. dhammaantood waa imtixaan nala marinayo. waxaan madaxdeeda iyo ummaddayada kula dardaarmayaa inay midnimadooda ilaashadaan, ilaahoodana u noqdaan, anigana iigu duceeyaan jidka aan doortay inuu noqdo mid aakhiradayda iyo dunidaydaba miro wanaagsan aan ka matay. samafal ee aan u jeesanayo waxaa weeye waa wax kaste oo ilaahay ii dhoweynayo, waa wax kaste oo khaatumadeyda hagaajinayo. haddaan inta in yaroo dhaqaalo helo ama carruurteyda ka qaada aan ceel qodi karo, waxaan u arkaa samafal. haddii tuulo mid silsilad ku xiran aan la kulmo oo aan eego oo aan dawo u qoro oo aan dawadii ka bixiyo, waa samafal. marka ma ahan dhakhtar ee waa camal saalaxa oo kasta oo iga hor yimaada, hadduu agoon yahay iyo hadduu rajo yahay iyo hadduu dayacan yahay iyo hadduu inaan naftayda wixii aan qaban karo qabto. tii kale waxay ahayd dhakhtar waa shaqo weeye, sida injineerku shaqo u yahay, waa shaqo aan ku noolaa weeye. waa shaqadan isbitaalkan ka dhaliyey weeye, waa shaqo. marka taa dib dambe u fariisan maayo, maaragtay inaan miis iyo kursi qaato qof yaraada xagga ku xanuunaysaa maanta ay ugu dambaysaa. inaan shir siyaasadeed ka qayb gala iska dhaaf urure, shir siyaasadeed inaan ka qayb galana maanta ay ugu dambaysa. laakiin dalkan la jeclo badan baa iga haysa. duruufaha hor yimaada madaxda inaan la taliyo ama aan wax ka iraahdo anoon sidii marka hore waxay ahayd maxaan dhahaa dee tartan iyo waxbaa igu jiray. hadda laakiin tii baan siibay. mar kale Dr. Gaboose waxaa la weydiiyey sababaha xilligan ku soo beegay in uu ka fadhiisto siyaasadda, maadaama oo la hadal hayo in ururadii siyaasadda ee Somaliland la furo. cimri igu filan ilaahay weysiiyey. tartan nololeedu noocyo badan waan galay, hadday siyaasad tahay, hadday dhakhtarnimo tahay, hadday bara jaamacadeed tahay, hadday tahay meelo badan baan nolosha ka halgamay. markaan nafteeda hoose xogteeda gaar iskula baxnay, waxay ila noqotay in la joogo xilligii aan ka nasan lahaa howlahaas oo dhan, inaan ka nasan lahaa xilligii aan carruurtayda iyo dadkayga oo carruurtayda oo kalea maarata wixii liitaa maaragtay dadkayga iyo dalkayga aan indhahan ku eegi jiray. waxay ahaayeen indho kursiga fadhiiso oo waxbaad waad dhaamaysaa, kaas ka haysta mar walba ka haysteen wasiir u ahaa unbay naftu i oran jirtay sida wax loo wado malaha si ka fiican baa jirta. laakiin hadda waxaan noqonayaa qof shacbiga loo taliyo.